madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed qoorqoor waa mahadsan yahay madaxda kale halkan ka hadashay ee kala duwaneedna waa mahadsan yihiin farxad weyn iyo sharaf iyo karaamo iyo qadarin weyn ayay ii tahay inaan imaado magaalada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug sida loo wada tilmaamay sida ay dowlad goboleedka galmudug waddo u soo martay oo ay hayaan u soo gashay ayaa dowlad dhisidda soomaaliya oo dhanna ay hayaan u soo gashay sidaas daraaddeed waxaa asala waxay tahay wiil hadduu dhasho ma dhaamiyaa la yidhaaye wiil hadduu dhasho inuu koro soo barbaaro la tababaro la soo hagaajiyo u baahan yahay si oo wiil fiican oo baari oo reerku u dhaamiyo oo u noqdo galmudug marka taariikhda laga hadlayey maxaanku ihahday ka dhacday hoolkan 2015kii waxay ahayday dhalashadii wiilkii berri dhaamin lahaa waa soo barbaaray waa sii socdaa berri iyo berri dambena meesha maanta uu jooga meel ka sii xoog badan ayuu gaari doonaa waddada dowlad dhisidda ayaana sidaa sunnadeedu ay tahayo buluketi kale lasii dul saaray ayaa derbiga ku dhismaaya dowladnimaduna waa sidaas intaa kadib booqashadan halkan ku nimiday ujeeddadeennu waxay ahayd inaan u kuur galno xaaladda dowlad goboleedka iyo dadkeedana inaan la wadaagno tusinnana inay naga go-an tahay in aan guud ahaan dowlad goboleedyada dhan iyo maamulada dhan in aan maxaanku idhahdaa meel marino oo ay xoogaystaan shala waa dhasheen meelay soo gaareen waxbaa lagu sii daray meeshii aan uga tagnay ma joogaan badankood duruufo badan oo duruufihii hore ka sii dhib badan ha ku hareeraysnaadeene maantana waxaan rabnaa inay meeshaas ay joogeen ay kor uga sii kacdo dowlad goboleedyadoo dhanba kor uga sii kacaan duruufaha dhibka badan ee ku hareeraysanne intii aan ka leexin karno ilaahay idankiisa oo waqtiguna noo saamaxo awoodduna noo saamaxdana inaan ka leexinaan rabnaa si ay xowliga socodkooda u dheeraada haddii aan leeyahay intaa kadib wixii kaftan ahaa iyo wixii la dhihi karo dhan waa la yiri laakiin annaga hadafkeenu wuxuu yahay dowladnimada dalkan inay hana qaado waxyaabaha aanay ka hana qaadi karin ama dabraya ama hortaagan oo dhanna inaan ilaahay idankiisa aan ka leexino si aan uga leexinno marka si aan uga leexino oo hadday tahay amni iyo cadowga nabaddiidkaan ka leexin hadday tahay muxuu ahaay infrastructureka laga dhawaajiyey dhismihiisa iyo maxaanku idhaha hagaajintiisa hadday tahay dowladda hay-adaha dowladda inay xoogaystaan ay kor u kacaan hadday tahay dimuqraadiyaddu inay dhaqan gasho ay hor u socoto intaba shuruud koobaadaa jirto oo ku xiran waxaasoo shuruuddaasi koowaad waa maxay soomaali heshiisa inaan heshiisaan maxaa lagu maamaahi jiray uurkooliya ugaarsada dadku hadday ugaarata yihiin oo ay saakin u soo baxaan ugaar calooshana ay wax isugu hayaan oo midka kale la col ah uu ku jiro oo midka kale ka xun oo ku jiraahe maalintaas ugaar lama soo helo marka ugaarta intaan la aadin ayaa inta laysu yimaadaan la iscafiyaa maxaanku idhahday wixii laysu qaba laysu sheegaa oo laysku hawdaa markaas kadib aa la baxaa ugaarta la doonta iyadoo qof walba qalbigiisa uu nadiif yahay sidoo kale dagaalaan rabnaa inaan galno waxa ugu horeeyo ee hadafka dowladdeeda aan anigu madaxda ka ahay ee adigu aad ii dhiibateen aan u dhaarannay uu yahay dalkan iyo dadkan wixii u dana iyo diintooda inaan ka shaqeeyo waxa ugu horeeyo u dana dadkan waxay yahay irsaaqadda qofkan uu cunayaay ilaahay ayaa kafaalad qaaday laakiin muwaadinka soomaaliyeed caawa gurigiisa inuu nabad ku gam'aan rabnaa nimanka nabaddiidka ah ee ummaddan hooyasho iyo hergalaadba u diiday
inaan dalkaan meel ka saarnaan waxaanan meel uga saari karnaa in aan qulubteeda isku xirno oo aan hal dhinac ka soo jeeso qoryo keliya ugama saari karo maxaa naga maqan sida haddaata looga dhawaajiyo odaga reerku inuu na horkaco deegaanada uu nagu horkaco ciidanka qalabka sidaa uu horkaco oo degmo kastaa uu tiraa reer qurac madnahay haa yaa shabaab oo nala joogo ha la soo qabto waxaan rabnaa galmudug in ay bilowdo mashruuca sifaynta ah cabsida dadkeenna waxa dilaya waaye waa ka saaraynaa dadkuna waxaan leeyahaa cabsanina maalintaad dhimo laheed waa dhimane ama shabaab ha ku dilo ama muxuu kanaaca ha ku disho malaria kugu dhacdee ama corona kugu dhace waa dhimane saacadna lama soo hormarinayo ajashaada saacadna dib looma dhigayo waana qowlka ilaahay marka maalintaad dhimo laheed dhimane dhiiranaanaa kaa maqan dhiiranaan xume yaanay wax kugu seegin xurriyad yaanay kugu seegin qabkaagu yaanu ku jabin diintaada yaanay ku cilladoobin waxaa soo hartay markaan u soo noqdo kaftanka caawa halkan ka dhacay annagu dalkan inuu dal dimuqraadi aan noqdaan rabnaa dimuqraadiyadduna isbedbedelay ku timaadaa gabdhaheenna iyo wiilasheenna fanaaniinta iyo abwaaniinteenna waxaan rabaa iska joog yaanayna dhehen waa haddii kale waa dhumayna haddaan inaan iska joogno damacnee iskama joogi karno anna joogi ma karo qoorna joogi ma kareen muddaan leenahay muddadeena si fiican ha naloola shaqeeyo wax fiican haddaan qabnana ha naloo soo celiyo inta qaanuunka ogol yahay ha nalagu soo celiyo inta qaanuunka inta ogolaa midbaan dhammaysanana raalli ahaada socda ha nala yidhaahdo haddii aan wax qaban weynane waxaa waaye idinkuma bogine raalli ahaada waa dad kalaan dooranayna dadku waa inay go-aan ka gaaraan qofka taladooda maxaan ku idhaha tawalinaya oo haynaya cudurdaar ma laha taas inaan jooga jeclaaya ninkii yidhi adeer dardaaran aan yidhi dardaaran markaas aniga ahaa inaan jooga jeclaaya mana he joogi kariyo waa malkabowda ay yimid moogta marka qofku dadku xukunka iyo heybadda iyo maxaan ku idhaha waa la iska jecel yahay waana asbaabtaas asbaabta oo mabaadida dimuqraadiyadda loo keenay waqti aad leedahay haddii lagu bego waa lagu soo noqonaya haddii lagu bego waa ina dadka ka hor leexo naga leexa haddii lagu yiraan aqbal soomaaliya waxay ku ammaanan tahay waxa waaye naga leexadaasaan aqbalnay madaxweynihii aniga iga horreeyey 2022 madaxweyne shariifa aqbalay anaa aqbalay madaxweyne farmaajo daraad aqbalay haddee waddadaas waa furantay waana falantay waa socotaa qof soo xeli kara male aniguna baraan aqbalayaa kan iga dambeeyaa aqbali doona sidaasaa muxuu ahay sunno joogtaa oo soomaalidu ay ku dhaqantay u noqon doontaa haddii aan la yidhaah dowladnimo waa dastuur dowladnimo waa qaanuun kala dambayn waxaan aniga jecelahay maaha waxaad adiga jeceshahayna maaha wixii dadku ku heshiiyeen oo meesha yaallo waaye haddaanan jeclayn xataa waxaan ku khasbanahay inaan yeelo laanna dadkaa ku heshiiye ra'yiyaan dhiibi karaa war waxaan sidaa saan lagu heshiiyey xoogaa waa laga rooyahay amaa loo noqdaa ha loo noqdo maanti inta loo noqdo dadku haddana ay ku heshiiyaan inay bedelaan allahna gaarsiiyo laakiin ilaa maalintaas sida ay yihiina loo aqbalaya loo qaadanaya looguna dhaqmaya dad badan waxay yidhahdaan madaxweyne xasan galmudug saanuu ka qabaa iyo kanuu ka qabaa iyo kaasuu qabaa horta sideedaba annaga waxaan ka shaqaynayna siyaasaday ahayd siyaasaddana dad robot oo isku dhinac u jeeda oo hal mar la damiyo hal marna la daaro ma aha dad kala duwan ra'yiyo kala duwan leh qof walba wax la quman yihiin qof walba qumana qoorta ugu jiro yaan dhammaanteen nahay haddii siyaasaddii socotay la isku jiidjiidayay oo maya sidaan maaha sidaan waa maya saanaa ka ron la islahaa waxaasoo dhan markaa habaar dhammaantiis dhimo ayaa u weyn duco dhammaanteedna dhurow isjiidjiidkii iyo kala ra'yi duwanaanshihii iyo
isku muxuu ahay booxaaleyntii iyo wixii oo dhan waa soo dhammaadeen soo maaha maxay ku soo dhammaadeen xasan sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda ah maxaan qabi karaa marka yaanse wax u qabi karaa qofaan wax u qabo ma jirto qof wax iga bi'isay ma jirin waxaan aaminsanahay maalintaas ra'yiga aan qabay ra'yiga ka duwan dadka qabayna ra'yigoodana saxay ku ahaayeen mowqifkaas inay qaataanna saxay ku ahayd waa la qumanayd laakiin qumanaantii waxaan ku guulaysanay meel lagu soo wada dhammeeyo oo waxaan isku raacsannahay inaan keeno teendadii haddii la tegey kadib kala ra'yi duwanaashi waa dhammaatay walaalihii iyo saaxiibadii waddadii la soo maray oo dhan ay wax ku soo galagaareen waxaan leeyahay cayaartii waa soo dhammaatay caadi iska dhiga caadi iska dhiga haddii dadka qaar ay dhihi jireen basku waa buuxayo meel laga fuulo male tareen aan dhammaanaynaa taagan aan tareenka wada raacno muxuu ahay nabadda iyo aayahana aan aadno isma qabqabsa karno isma xagxaga karno haddaan isku noqonno annagoo isqabqabsanno oo isxagxaganno ahdaafta waaweyn oo aan sheegayno ma gaari kareen madaxweynaha dowlad goboleedkan iyo madaxweyne kastoo dowlad goboleeda aniga agtayda xushmow ka leeyahay qadarinow ka leeyahay talow ka leeyahay kuma mashquulayno soomaaliduna hadda waa la bislaaday dhaqamadii hore waa kasoo guuruwaynaa oo na dhidhibi jira qaarkood inta dhimanna waa kasii guuraynaa soomaalidu waayo aragay noqoto waxna waa baratay khibraddu inay wax weyn tahay ogaatay dalka maanta golo sharci dejin hadday tahay iyo golo fulin hadday tahayba dad taladaan hore u soo marayaa jooga madaxweynihii hore xasan sheekhaa la doortay guddoomiyihii horeo golo shacabaa la doortay guddoomiyihii horeo aqal saraa la doortay dadka jooga waa dadkaas fursadda markaa madaxweyne kastoo dowlad goboleed in mar kale la doortaa koray u soo kacday madaxweyne qoorqoor marka waxaan leeyahay wax kaa ba'an ma jiraane dadkaada qalbigooda le hel cid kaloo ku haysan karta ma leh taladu reer galmudugay kaa jirtaa galmudug bannaankeeda wixii ka socdoo ku yimaadeen inaan yac dhahan annagaa nalaga raba